ميسي بلا ليونيل ميسي برشلونة وأن برشلونة habeen ku caawana waxaba soo cadaatayba in Barcelona aysan u dhitanayn la'aan Lionel Messi xilli ay ku riiqatay garoonkeeda weyn ee Camp Nou kooxda lagu magacaabo Inter Milan ee ka socotay fajiistayaasha Talyaaniga waxaana dhacdayba in indhahu jamaahiirta Barcelona uu isbaro ciyaaryaanka yar ee lagu magacaabo Rafinha oo ka faa'iideystay loob uu soo saaray Luis Suarez daqiiqadii 32 waa istaagay oo waa fadhiistay waa fiiriyay waxaana ogaadayba in halkaasi uu ka yimid goolkii koobaad ee naadiga Barcelona Suarez Rafinha جول فنان انت يا سواريز كنا نعرف عنك انك بيلدوزر وهداف qaybtii koobaad waxa lagu kala nastay gool iyo waxba hase yeeshee markii la isku soo noqday qaybtii labaad daqiiqadii 83 waxaaba toos ugu dhameystiray kooxda Inter Milan Jordi Alba pisa área, quiere el segundo Alba. ¡Gol! Del Barça del 83. Gol de Jordi Alba. Interna waxay isaga soo tagtay garoonka Camp Nou iyadoo waysay xitaa goolkii calanka oo waxaba lagu tumayba 2 gool iyo waxba gaasta kale waxa ciyaar qurux badan ay dhaxmartay Paris Saint-Germain iyo Napoli waxaana dhihi karnayba waxayba ahaydba ciyaartii dib u soo laabashada qarniga oo Paris Saint-Germain waxayba samaysay soo laabasho cajiib ah iyadoo uu joogtay garoonkeeda labada kooxoodna waxay ku ballameen 2 gool iyo 2 dhinaca kalena Amber Road waxa ku ciyaaray labada kooxood ee kala ah Liverpool iyo sidoo kale kooxda Xavier Zvezda waxaana dhacday in caawaba ayba noqotaba habeen uu ismuujiyo laacibka reer Masar ee lagu magacaabo Mohamed Salah Xavier Zvezda waxa lagu garaacay 4 gool iyo waxba kuwaasina waxay ahaayeen kulamo ka tirsan heerka gurubyada ee tartanka Champions League